وأنا كنا بيراك لنا لكن تاسيال كاسك بحياة وحن أنا جو كوه هذا يبغى عبوينا كبير ويتدير ميرك سويشوجا وحن إذا كبورينيا إن دو استعتاب سيدا فورك وجه فريدا ما يعتير أنا موجين عندنا بنان عندنا وبتكين إذا تكبر بارسان إلى يدير أنا واحد كبر بارو كبر كأوضة كورة وأنا مثلا سبرون باري راس ولا في لكن ما تروح نقعدين أمدير هاي because it has some يهرب ده سومالي ده كريه بدون لكن ما تروح نقعدين ولا هي ندير أي دم إلهي بيجي وأنا كفر حياة أنا هذا قل تاس هرجع ساكن بحيم مرة وحن هرجع تحسي ووجود بنيا تطيب فرحي وروي لبعتدي يبرك لك كتير كوكا شباب الله إلهي يقولنا أنت كل ما تناولنا على الصوم إنك إن الله يبصرنا حق بينوته أنت كده وحن هرجع فا وجه الدنيا ودعوينا الصومالية حس الشيخ ما هي إن وداوضة لبعتها كتير كوفك شبه اللاوس وحن الواحد نبت تاجر قفك أنا كهذا يسوي ملاقبة وحن مو باقي مثلا حس الشيخ إن واحد تخص ويجو أو لا أودم قدر ذاتك هو مدحوينا وياه يحكم في سلوك المياه إنه كتب قدر تاسي مدحوينا علينا بدل ما وحن باعوا دريا برلمان قلت حبلها برنامج يجي تربيوي تدر دموع كان واحد متردد وعده تبيته لكن وين من تامر لا دورته هو ما يعدل كل هذا ورثك هذا لكنه حمر كلام كل حمر هذا جوجا تيجي من الحرية وحب شيء كلام تاسي تاسع كي بعدين وحنا مرة بعد ودي بيرها سكوت هي إلى نور بلاس سبيا والله بدنا نتحكم نكر ليه ونكر على كلمة تاسينا هو قادم لأن تابوت من دبرجي ساعة الله حكومية هو هو بيسرية وردير بمسك إيطالياني أي إنجليز أي ديدر والله ما أنا بيرسل أنا كوك marka waxaan idinku boonay walaalayaal inaad heli oo wanaag istagtaan walaalihiina ku dhawaadaysan gobolka Shabeellaha Hoose marnaba anigoo hadal ku sii dheeraaday waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan barashadu baahsan yahay inkana waxaan galaynaa dhinacii wax ku qoran dhinaca dumarka waayo haddaan dumarka ku yeelaya kolley waxaan maranayaa in meesha ka muuqata maaragtay marka hadda waxaan dhiibayaa Caasha Cali oo idin laba kalmood oran doonta insha Allah soo dhawaad Caasha sidoo kalena runtii dhowr mar waan hadlay oo dad wax waa u khudbay laakiin iko anoo Soomaali wax ku sheega marka la yaabin runtii muhiim waxaa ma aha kaliya iskaashada in ay noqoto dhaqaalo ama xoog ama sidii dadkii ugu horeeyay sheegayay waxaasi oo dhan ka muhiimsan horta imaanshadiina yani qofka inuu isku soo xil saaro in oo shirka ka soo qayb galo qofkii markaasi uu yaqaanane ku abaabulo ama ku muujiyo ahamiyadda ay leedahay in oo qofka ka soo qayb galo shirka walaalihiisa waayo taasi aad ay muhiim u tahay dadkiina way dhiirigelinaysaa aniga horta qurbahan ku soo koray
dirna waa ogaan jiray inaan ahay waan ogaa inaan dir ahay laakiin waxaan kasii ahay iyo ma sii interest gareyn jirin waayo mana lagu soo abaabulin waayo waxaan ogay qabiilku wax xun inuu yahay hadda jeer hooyadeen inuu sheegaysa laakiin waxaa mar walba oo dhiigaygu ku jiray ama u damqanayay magaca soomaalinimada oo aan ogahay in ay dirna soomaali tahay anagoo horta dadkiinaaniiti dhalinyadii yaryar oo dhimcaddii iyo barwaaqadii dadkii waaweyn ee soomaaliya waagii dowladda jirtay kusoo anficeen anaga jaaniskaas uma helin marka saas awgeeda anaka ama khurbo joogteena aad iyo aad bay noogu hami weyn tahay in ay dalkii iyo barwaaqo ka jirto si aan anagana ugu fikirnay inaan dalkeeni iyo barwaaqadeeni iyo wixii waalidkeen noogu sheekay jireen aan heelo kulana markaan xagga tagno waxaa marka maanta aad iyo aad aan ugu xanuunsaday anagoo intaas 20 sano ama dhowr 20 sano dalkeena burbur ka jiro oo maanta aan isnahnay kumeelgaar iyo dagaalka waa laga gudbiyo dowladii calan aan oo dhashtay inay at the same time ka dhibaatooyin ka jirto meeshii oo dad lagu laynaayo xuquuqdooda lagu dhacayo taasina waa wax runtii fajac ay ku noqotay cidna dulmi diidi mayso dooni maysaa rabi yeelina mayso ama dirha noqota ama dad kalabo qof yeelaya male in la dulmiyo inaad dadka dulmisidna waa runtii wax laga fiican yahay marka runtii dowladda ama madaxweynaha waxaa anagoo hadda dumarkii ama magacii dumarka ama haweenka oo direed caawa halkaas kugu timaaday aan ku hadlayo waxaan dhihi lahaay fadlan arrintaasi waa arrin ceeb waa ceeb anagoo dhowr iyo 20 sano aan sugaynin dowlad ammaan barwaaqo dhibaatooyin halkaasi ka dhacdo marka fadlan arrintaasi inuu oo madaxweynaha maxaa la dhahay cudur daar iyo waxyaabihii la sheegaya oo ka bixiyo waxaas dhan ka muhiimsan horta dadkii oo la dhibaateeyey oo guri la-aanta oo beerahoodii la dhacay in wax loo qabto in la iskaashado dhaqaale ahaan sidoo kalena warku intaan ku dheeraanin waxaan dhihi lahay dumarka shirka ha imaadaan gabdhaha walaalahayga haddee dhibaatooyin oo ogna inkastoo ay ka jirto oo may hadla wax carruurta loogu soo tagta aysan jirin laakiin taasi xataa waxaa rajeynaa marka dambe oo shir la soo abaabulaayo in arrintaasi bal haddii xataa dumarka laga caawini karo dhowr qofood oo carruurtii hayso la suurtageliyo si ay dumarkii u soo imaadaan shirka dhibaatada iyo wax waliba ula qaybsanaan dadkii ogi ama walaalahoodii marka waa mahadsantihiin assalaamu calaykum aad iyo aad bay caasha u mahadsan tahay haddana waxaan yeedhayaa aabbihii dhalay caasha caliyana caliyuu yar yaaba walaala kan damoolka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد مودا إن نسوق نجيب الجبدي أنا قبلها نسيب كيجا يسكبهم وحقصوا بمحل لبضك عمود وحكوا يستان وحتى الصعب ويقلب السوق يسال لكن أنا جاية كجفلة إن شاء الله الكريم مجمعنا يمجعي قبل وحنوهم هالنقيا كسوق بقرياشة قضياشة سلطان بشير هذا طهر حامك إلى هذاي عبد الرشيد حامك إلى هذا بروبلم عيسى أسوق وابا النوجا كلا يا عاود أنا أحمد صادق أنا أصحاب كلا وكسوق بقشيء موسى يو حامك إلى هذا عبد الفتاح وأد سوق هولي هوشان أنا سيدنا نور dhamaato sidoo kale waxaa jira asxaab badan oo hawlaha kale iyo maaragtay macmacaanka iyo sharaabka iyo hawlihii hore noogu soo waday waxaan jecelahay hadda waxaa la yidhi haddii lagu sheegana waa la is-sheelaa haddii lagu sheelana waa la is-sheegaa haddii lagu sheegana waa la is-sheelaa marka waxaan u malaynayaa ereygii ku habboonaa oo ahaa
xaaladda ay dir ku sugan tahay inay fadhiga ka kacdo inay wax iska dhiciso waqtigaan umaba filayninba in loo tilmaamo inaynu wax iska dhicinno taariikho hore ayaynu u lahay laakiin waqtiga iyo waxaadan filayninba macna waa kugu soo baxaan beri baa waxaa la yidhi ninbaa cayaarta tuli jiray weliba gobolladaas dhexe buu ka mid ahaayo cayaartan maxay ahayd wilwilada iyo wax noocaasa ayuu tuman jiray markii dambe waxaa la yidhi wareer nin weyn baa noqotay oo xoogaa da' baa ku hayseen cayaarahan iyo waxaan iyo fiidgudkaan iyo waxaan ma iska daysido markaasuu looxjiid noqday oo kitaabkiisa iska qaatay oo tuulooyinkaasna sida aad ka warqabtaan habeenkii baa la iska soo boodbooday ayaantii dambe habeenkii dambe wuxuu ku soo baxay cayaartii oo isku tuba dhacdo oo cirkaas maraysa marka haddee waa tuu lahaa cibaadaysaan cindiga ku hayay daniba way ku celin cayaaraha marka in badan waxaynu ku fakeraynay ama caqliyadeennu ay ku salaysnayd in aynu annaga dhexdeenna iyo soomaaliyoo dhan iyo cadowga iyo cid kastaba inaynu nabad kula noolaano haddiise hadda la isa soo galay oo dadka qaarkii lagaba fadhin la'yahay daniba way nagu celin cayaaraha waxa ay noogu celinaysana waxay tahay hashaan gaadaweynow libaax uga gaboon waayey inaan goraya caw uga tagaa waa wax soo goray weeye qarannimada sharafka deegaanka iyo dadnimada diri leedahay cid loo hoos joogo ma jirto taas qof walba ha ku kalsoonaado qiimaheeda iyo qayamkeedana waynu leenahay dadka Soomaaliyeed dalka ku dhaqan nagula dhaqan hadday waxaan maqlayay dad badan oo wale maxaan ku yiraahdaa anagu dulmi sameyn mayno war dulmi haddaadan sameyn adiga lagu sameynay waxa ka jira dalka in badanna waanu ka hadalnay waxaanu uga hadalnay waxay tahay dhaqanka ka jira dal walba dhaqan buu leeyahay adduunyadu dal walba deegaan walba dhaqan gaar u leeyahay dalka qaarkii waxaa jira salaanta koofiyadda la isku salaamo oo koofiyadda marka salaanta marka aad kor u qaado haddaadan koofiyadda kor u qaado qofkaas ma aadan salaamin bay ka dhiganta dadka qaarkii waxaa jirta weliba waqooyiga Afrika dadka waxay ka salaamaan halkaas laabta halkaa naaska korkiisa waa la iska taabtaa sidaas marka naag cadaan oo diyaarada kula dhacday waqooyiga oo meel iska taagan baa waxaa ku soo baxay rag deegaankii marka waxay dabceen naagtii inay salaamaan nin madow oo soo maqiiqan oo halkan soo taagan marka uu naaska ku dhago meeshii waa lagu dagaalamay oo meeshii waxa weeye kaar baa ka dhacay dhaqanka ka jira Soomaaliya waa dhaqan ku salaysan qabiil qoraallo badan oo laga sameeyey caalamka uu daraasad badan ka sameeyey waxaa la yidhi Soomaalida shakhsiyadda qofka wuxuu ka kooban yahay kow diinta ayaa laakiin xuubka ugu sarreeya jirkiisa waxa ka hooseeya waa qabiilka that means waxa weeye bariga Afrika dhaqanka looga dhaqmaayo wuxuu yahay haddii uu qof kaa soo horbaxo sida salaantu ay u ahayd in koofiyadda la iska bixiyo in hay la yiraahdo in oo haddii qofka kaa soo horbaxa aadan labada indhood u leeyahay mid ka tuurin waxaa ku talagashaa adiga inay mid kaa maqan tahay waa nidaamka ka jira wey marka waxa dib lagu haysto iminka oo meel walba lagu dilayo oo meel walba lagu silcinayo oo meel walba lagu dhibaataynayo
macnuhu waxa uu u fasiranaynaa amaba ay tahay xaqiiqdu waxay tahay maxaad wanaag noogu samaysa hargeysa deegaankii dacartaa la yidhaahdaa waa la yaqaanaa saylac waa la yaqaanaa ilaa iyo maaragtay deegaamada dir ay degan tahay bilaa weligeedba waa la yaqaana yacni in la isyeelyeelo wax kala ku jira sidii haddaa axmed saadiq sheegay waxa ku jiraana waxay tahay in la doonayo in indhaha la iska tuuro waxaan anagu marka caddaynayna wixii hadda ka dambeeya ishiyada si aan ku badbaadsanno indha dhaaxaa bannaankaan u keena yacni xaqiiqdu waa sax